Aqalka sare ee baarlamaanka Mudane Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qaabilay safiirka dalka Ruushka u fadhiya Soomaaliya Mikhail Golovanov. Gudoomiyaha iyo safiirka waxa ay kulankii qaabilaadda kaga hadleen xoojinta xiriirka labada dal, sii ambaqaadida adkeynta xiriirka diblomaasi iyo ka qaybgalka Ruushka iyo dalalka Afrika oo lagu wado inuu bisha Oktoobar ka dhaco magaalada Sochi ee dalka Ruushka. Kulanka qaabilaadda kadib waxaa warbaahinta qaranka la hadlay Mikhail Golovanov, safiirka Ruushka u fadhiya Soomaaliya, waxa uuna sheegay in aad ugu faraxsan yahay kulanka uu la qaatay Cabdi Xaashi Cabdulaahi, gudoomiyaha golaha aqalka sare ee dowladda federaalk Soomaaliya. Waxaanu hadalkiisa sii raaciyay in dowladda Soomaaliya ay ku martiqaadeen shirka Ruushka iyo Afrika. Safiirka Ruushka u fadhiya Soomaaliya Mikhail Golovanov ayaa kulamo gaar ah la yeeshay madaxda dalka ugu sareysa, wasiiro iyo xubno kale.